daawadayaal habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waa 29ka bisha Agoosto qodobada barnaamijkan falanqaynta siyaasadda dunida aad ku daawan doontaan caawa waxa kamid ah weerarkii cirka iyo dhulka ee militariga maamulka Israa'iil ay ku qaadeen banaanka caasimadda wadanka Suuriya ayaa la ogaaday ujeedka ka dambaysa waxaana ciidamada militariga ee maamulka Israa'iil ay soo burburiyeen qalab dawladda wadanka Turkiga ay ku rakibtay aaga magaalada Dimashq si loola socdo dhaqdhaqaaqa ciidamada militariga ee maamulka Israa'iil ee ku sugan gudaha wadanka Suuriya falanqeyn ayaanu ku sameyn doonaa arintaasi qodobada kale ee barnaamijkan caawa aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha maamulka Israa'iil ayaa laga sii kala cararayaa hadda qareenadiisii ka difaacayay musuqmaasuqa lagu haysto ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa wacad ku maray in dhawaan ay ka tagi doonaan haddii musuqmaasuqan uu sii socdo maadaama sharaftoodii ay sii dhamaanayso hay'adaha ay ka tirsan yihiin cadaadis weyn ay kala kulmayaan qodobada kale ee barnaamijkan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda wadanka Lebanon ayaa ku faanaysa in shalay ay hubka ka dhigtay 3 kooxood oo reer Falastiin ah oo ku sugnaa koonfurta wadanka Lebanon kuwaas oo Israa'iil la dagaalamayay arintan maxay salka ku haysaa waanu eegi doonaa dawladda wadanka Faransiiskana waxa ay qaadaysaa tallaabo weyn oo ay ku farxi doonaan shacabka reer Falastiin kaasoo ku aadan in Faransiiska uu qorsheynayo in safaarad uu ka furto daanta galbeed marka uu ku dhawaaqo bisha soo socota aqoonsiga dawladnimada reer Falastiin arrimahaasina waanu ka hadli doonaa haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo subscribe inoo saar waxaanu ka hadalnaa dhacdooyin kuwan la mid ah oo caalamka ka taagan marka hore barnaamijkeena waxa aynu ku bilaabaynaa warbixin uu qoray wargeys ka soo baxa wadanka Saudi Arabia oo la yiraahdo Al Hadath kaasoo ka hadlay isla markaana banaanka keenay qorshihii ka dambeeyay weerarkii cirka iyo dhulka ee diyaaradaha daroonka ee maamulka Israa'iil iyo kuwa F-16 iyo commandoska maamulkaasi ay ku qaadeen banaanka caasimadda wadanka Suuriya ee Dimashq wargeyskan waxa uu xiganayaa ila diblomaasiyadeed iyo kuwa amni waxa uu sheegayaa in ujeed weyn uu ka dambeeyay weerarkaasi warbixinadu waxa ay sheegayaan in ciidamada militariga ee maamulkaasi ujeedkii weerarkaasi ay u qaadeen inuu ahaa in ay soo burburiyaan qalabka ilaalada wadanka Turkiga uu ka sameeyay aaga magaalada Dimashq ee caasimadda wadanka Suuriya kaas oo loogu talagalay in lagula socdo dhaqdhaqaaqa ciidamada militariga ee maamulka Israa'iil ee ku sugan gudaha wadankaasi Suuriya warbixinadu waxay leeyihiin maamulkan Israa'iil sidoo kale waxa uu uga digay dawladda wadanka Suuriya in ay Turkiga ama Ankara kala shaqeyso arrimaha ku aadan in la hormariyo qalabka lagula soconayo dhaqdhaqaaqa ciidamada kala duwan ee militariga ee Israa'iil ay ku leeyihiin gudaha wadankaasi Suuriya dhinaca kale sarkaal Suuriyaan ah ayaa telefishinka Al Jazeera u sheegay in 4 diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca oo ciidamada cirka Israa'iil ah iyo 2 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka oo ay soo gaareen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Al Kaswa oo dhanka koonfureed ka xiga magaalada Dimashq halkaas oo ay geeyeen 10 ciidan oo loogu talagalay ciidamadaasi in ay halka ay saldhig ka dhigtaan oo Turkiga ay kala dagaalamaan qalab kasta oo lagula soconayo dhaqdhaqaaqa Israa'iilna ay ka hortagaan sidoo kale militariga maamulka Israa'iil wali si rasmi ah uguma aanay hadlin warkan laakiin wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay goor sii horeysay oo shalay ah in ciidamadu ay habeen iyo maalinba ay ka howlgali doonaan furmaha dagaalka ee wadanka Suuriya haddaba Suuriya intee in la eg bay saldhigyo ku leedahay wadankan Suuriya tan iyo markii la riday dawladii Bashar Xaafid al-Assad bishii December 2014 ilaa maanta 9 goobood bay saldhigyo ka samaysatay oo wadanka Suuriya ku yaala Turkigana arrimahaasi ayuu wuxuu ku sameynayaa dabagal isagoo dhaqdhaqaaqa Israa'iil ee wadanka Suuriya si gaar ah ula socda maadaama Suuriya iyo Turkiga xuduud ay leeyihiin Israa'iilna ay dabcan doonayso 3 wadan Pakistan Turkiga ama Masar midkood in ay weerar military ay ku qaado sanadada soo socda bal qodobkaasi qaybta hoose ee commentiga ra'yigaaga noogu reeb sidee baad u aragtaa Turkiga daandaansigan lagu bilaabay iyo waliba tayeenta ciidamada militariga ee dawladda wadanka Suuriya sida hadda qalqal ay u galinayso Israa'iil watii galabta aynu ka soo hadalnay ama caawa aynu ka soo hadalnay horaantii 3 xildhibaan oo Amerikaan ah oo ka soo noqday wadanka Suuriya inay weerarkii cirka iyo dhulka ahaa ee Dimashq banaankiisa ka dhacay ay cambaarayeen kuna tilmaameen xadgudub madax banaanida iyo qadiyadda wadan xor ah oo dawladi ay leedahay
bal markan aynu eegno ra-iisul wasaaraha maamulka Israel Netanyahu ayaa u muuqda niyad ahaan iyo sidoo kale maamul ahaan iyo siyaasad ahaanba mid u sii dhimanaya qareenada ra-iisul wasaarahan ka difaacaya musuqmaasuqa maxkamadaha ay ku haystaan ayaa wacad waxay ku mareen in dhowaan ay ka tagi doonaan haddii maxkamadahan ay ku helaan musuqmaasuq kale oo cusub oo ninkan lagu haysto qareenka sare ee difaacaya ninkan Netanyahu la yiraahdo oo magaciisu uu yahay Amid Hathath ayaa maxkamadda u sheegay in go'aanku aad u dhaawici doono awoodana uu hoos uga dhigi doono Netanyahu maadaama ninkan musuqmaasuq fara badan lagu haysto maxkamadihii caalamkuna ay dambiyo dagaal oo Gaza ku saabsan ay ku soo eedeynayaan marka dhinac banaanbaxyo ayaa ka socda oo gurigiisii iyo qoyskiisii ayaa baxsan la oo waa la weeraraya oo shalay waxa u dambeysay guriga ninka hogaaminaya ciidamada militariga oo la burburiyay albaabkiisa quraarado rinji casaan lagu daadiyay arimaha dadka ka soo horjeeda dagaalka ayaana sameynaya marka isaga uu siradiisa taliyaashiisa intaba kama baxsan karaan banaanbaxyada siyaasadda gudaha way qaybsan tahay oo ninkan waxa ku furan dacwado gudaha wadanka oo ku saabsan musuqmaasuq ku saabsan wax isdabamarin maamul xumo waxyaalahaas caalamkana dambiye dagaal ayaa ugu furan qarinadiisuna hadda waa kuwan sheegaya in ay ka kala cararayaan dhawaan bal dhinac kale aynu eegno dowladda wadanka Lubnaan ayaa ku faanaysa oo sheegtay shalay in ay hubka ka dhigtay 3 kooxood oo reer Falastiin ah oo koonfurta wadanka Lubnaan ku tirsan kuwaas oo la dagaalamayay ciidamada militariga ee duulaanka ku ah wadanka Falastiin iyo sidoo kale wadanka Lubnaan intii lagu guda jiray booqashadii bishii May Mahmoud Abbas madaxweynaha reer Falastiin iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka Lubnaan waxay ka wada hadleen oo isku raaceen in reer Falastiin kooxahan jabadaha ah ee hubeysan ee koonfurta wadanka Lubnaan hubka laga dhigo oo sidoo kale wadankaasi laga soo saaro laakiin in isla toddobaadkan markii xogaye ama safiir ama ergey sare oo Mareykanka u jooga Suuriya uu yimaado magaalada Beirut ee caasimadda wadanka Lubnaan maalin ku xigtay oo shalay ahaydna kooxahan reer Falastiin hubka laga dhigo waxay leeyihiin dawladdu wali waxa ku adeeganaysa Israel iyo sidoo kale Mareykanka kooxaha shalay dawladdu ay ku faantay in ay hubka ka dhigtay waxa kamid ah kooxo sanado la dagaalamayay ciidamadan Israel ee duulaanka ku ah koonfurta wadankaasi Lubnaan iyo sidoo kale kuwa kale oo dabcan ku xirnaa xarakaadka kale ee ku sugan Lubnaan ku sugan Falastiin ku sugan Suuriya ilaa iyo sidoo kale wadanka Yemen ku sugan marka dawladda Lubnaan hadda waxay cagta saartay wadadii burburka aad baa loo baqayaa wadanka oo dhan waxa la leeyahay hadiiba Xisbullah ay dagaalanto kooxahan yaryarna maadaama iyaguna hubka laga qaadayo waxay dabcan waxa la saadaalinaya inay ku biiri doonaan Xisbullah oo dagaalka uu balaaran doono wadankana dagaal sokeeye uu ka dhex qarxi doono bal qodobkana qaybta hoose commentiga noogu soo reeb kooxahan reer Falastiin ee koonfurta wadanka Lubnaan ee dawladda Lubnaan ay hubkii kala wareegtay oo ay tiri wadankana isaga baxa ama jooga midii aad doontaan laakiin waa in aad hubka dhigtaan hubkiina way kala wareegeen kooxahaasi waxa hadda marka hubka lagala wareego falanqayaashu ay leeyihiin waxa suuragal ah in Israel ay ku bilowdo duqeyn dadkii hubka laga qaaday ee rayidka ahaa bal qaybta hoose commentiga rayigaaga waad ku cabiri kartaa ugu dambeyntii aynu eegno Faransiiska waa tan beri dambe ama saa dambe September wixii ka bilowda ay aqoonsan doonto dawladnimada reer Falastiin waxa la leeyahay waxa hadda soo baxaya macluumaad sheegaya in Faransiiska safaaradiisu uu ka furan doono magaalada daanta galbeed ee la haysto ee dhulka reer Falastiin Faransiiska ayaa hadda miisaamaya in safaaradiisu uu ka furto dhulka maamulka Falastiiniinta ee daanta galbeed iyada oo garab socota safaaradda Faransiiska uu ku leeyahay deegaanada maamulka Israel uu xooga ku haysto sidaasi waxa sheegay la taliyaha madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron kaas oo arimaha Israel iyo Falastiin ka hadlayay waxa ay sheegeen in talaabadan ay kor u qaadi doonto muuqaalka wadanka Falastiin iyo sidoo kale inay u soo jiidi doonto dawlado dhowr ah in ay iyaguna safaaradahooda ay furtaan
faransiiska ayaa safaaradiisu waxa ay suuragal ay tahay in magaalada Ramallah ee daanta galbeed laga furo taasi oo kor u qaadaysa fahamka ujeedka iyo sidoo kale sida dawladaha caalamku ay markan iyaguna ay xiriiro wanaagsan ay ula sameeysan doonaan reer Falastiin. haddaba reer Falastiin aad bay u soo dhaweynayaan arrintan. marka koowaad waxay soo dhaweeyeen Faransiisku, Ingiriiska iyo Canada inay bisha September ku dhawaaqi doonaan aqoonsiga dawladnimada reer Falastiin. midda labaad oo shalay ilaa iyo caawa ilaa iyo hadda lagu farxayana waxay tahay in safaaradda Faransiiska magaalada Ramallah ee daanta galbeed laga furi doono, taasoo Israa'iil geeri ay waragto isla markaana haddaba dagaal ay ku bilowday. Faransiiska oo dagaalka lagu bilaabay Faransiiska waxa kamid ah in Israa'iil wasiirkeeda arrimaha dibadda shirkii toddobaadkan kii ka horeeyay ee golaha wasiirada inuu dhex keenay mooshin ku saabsan in safaaradda Faransiiska ee Jerusalem la xiro, taasoo Faransiiska uu yiri cawaaqib ayaa ka dhalan doonta haddii la xiro safaaraddeenu xiriirku saamasi ahaanayo annagana Falastiin ayaanu toos ugu guuri doonaa. arrintaasina meel xun bay gaartay. xitaa Mareykanka ayaa dagaalkii soo galay oo isagana Faransiiska ku eedeeyay eedeen aan meesha jirin oo ah waxaad jeceshahay dadka ka soo horjeeda Israa'iil ayaa jeceshahay, iyaguna waxay leeyihiin annaga ma jeclin dadka Israa'iil ka soo horjeeda. marka eedeentaasi iyo isu jawaabidaas waxay keentay Faransiiska inuu caroodo, safiirkiisii Mareykanka joogayna uu u yeerto. marka Faransiiska, Mareykanka iyo Israa'iil arrimahoodu meel qaraar bay marayaan, waxaana suuragal ah in xaaladdu ay faraha ka sii baxdo oo xiriiradu la kala joojiyo oo markan lisu bareero dagaal rasmi ahna uu meesha uu ka bilowdo. macluumaadkan ayaa daawadayaal ugu waaweynaa kuwa aan usoo xulnay caawa barnaamijkan qaybta ah inaan kusoo gudbinno, bal qodobadii aan kasoo hadalnay qaybta hoose ee commentiga, ra'yigaaga, fakarkaaga waad kasoo dhiiban kartaa. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. fadlan ha iloobin inaad subscribe saarato si aad u hesho macluumaad kuwan la mid ah oo maalin kasta caalamka ka taagan oo aan annagana halkan aynu ku falanqayno. mahadsanediin dhammaantiin.